waaxda maamulka iyo lacagta ee wasaaradda horumarinta maaliyadda ayaa ka mid ah waxaa sida weyn loogu sameeyay casriyeynta nidaamka ay u shaqayso. Waa kan Xuseen oo inoo sharaxaya qaabka ay u hormariyeen waxa ay soo iibsadaan iyo nidaamyada casriga ah ee ay u isticmaalaan. haddaan ku horeeyo nidaamka wax iibsiga ee dawladda sida uu dhigayo xeerka qandaraasyada qaranku ID2/2018 wuxuu sheegayaa wixii ka weyn 50 milyan in la naadiyo oo bid la mariyo. wixii 50 milyan ka yarna waxa awood u leh wasaaradaha ama hay'adaha in gudahooda iyagu iibsan karaan. nidaamkan u marna waxa weeye threshold baan leenahay siyaasad baan ka leenahay procurement plan ah. thresholdkaas wuxuu leeyahay 5,000 ilaa $100 wixii u dhaxeeya waa quotations qiimo sheegaya la ururinaya badan oo laga dhex dooran doona. wixii $100 iyo wixii ka hooseeyana waa single quotation, hal quotation baa lagu iibsan karaa. haddaba kuwa quotationska qaabkan u sameeyay waxa weeye marka hore baahidu waxay ka bilaabmataa waaxda doonaysa baahida, waaxda codsiga soo gashata. annagoo imika waxaan ku shaqeynaa systemka la yiraahdo IFMIS-ka. systemka IFMIS-ku wuxuu kala leeyahay qayb waa purchase, qayb waa payments iyo expenditure ka qaabilsan tahay, qaybna waxa weeye expenditure ka ah kharash iyo mushahar kala ah oo qaybsama. qayb kale iyadna waxaa jirta asset registration-ka diiwaangelinta hantida wasaaradda oo lagu diiwaangeliyo. intuba isku wada xidhan related bay waa integrated oo midba midka kale u akhriyaya. qaabkee ayuu u bilaabmaa wax soo iibsiga wasaaraddu halkee ayaanu ku dhamaadaa? requisition baa jiro oo waaxdu codsiga soo gashataa. marka la approve gareeyo kadib quotations baa la qaybiyaa. saddex qodob baa lagu kala saaraa. saddexda qodob baa lagu kala saaraa waxa weeye waa waqti, qiimaha, tayada shaygu leeyahay. kadib baa systemka laga sameeyaa orderka. systemkuna orderkii buu sameynayaa, orderkii baa loo diraa dukaankii ciddii ku guuleysatay. kadib baa payment kala sameyn karaa. payment wuxuu soo akhriyayaa orderkii alaabta lagu dalbay. orderku ka soo akhriyayaa systemku. paymentku saasuu ku imanayaa. deedna paymentkii lacag bixintii baa loo sameynayaa. berigii hore waxaa dhici jirtay inay xafiisyada yimaadaan oo ay raadiyaan biilkii daba socon biilkayga ku maraya ii dedejiya kan iyo wada imika xafiisyo ma yimaadaan. qof kastoo ganacsadi isagoo meheradiisa joogo biilkiisa wuxuu kala socdaa mobilkiisa waa tracking systemka message baa u dhacaya. marka submit la yiraahdo stage ku horeeyo uu tusaya xafiis ka gudubtay. xafiis kale markay tagto uu tusaya submit la yiraahdo ilaa bank. systemku marka ilaa bank uu isku xidhan yahay ilaa ka bank waa nidaam la adkeeyay kharash bixintu inaanay wax meelaan meesheedii ahayn lagu talagalay marin. hadda su'aasha isweydiinta lahi waxa weeye maxay muwaadiniinta ama macaamiisha wasaaradda oo cashuur bixiyayaashu ay ka faa'iideen nidaamka casriyeynta shaqada wasaaradda horumarinta maaliyadda? tii waxay keentay in ganacsatadu ku soo dhiiratay in dawladdu wax ka iibiso, in lacagtoodii hore u helaan, in qiimihii dawladda wax kaga iibin jireen ay jabiyaan. waxyaabaha ugu badan ee sahlan waa fududeynta nidaamka lacag bixinta iyo cash availability. haddii maanta order la geliyo systemka oo alaab la dalbado oo la ogolaado la diro, systemku lacagta alaabta la dalbay meherada laga dalbay meheradayo ama meherad egas oo kala magac ahaan ayuu u haynayaa lacagteedu commitment u gelinaya. shay kale loogama sii isticmaali karo. payment marka la sameynayo wuxuu soo akhrinayaa taa commitmentkii oo magacii baa la soo gelinaya uu bixinaya. lacagta qofka shayga wax laga iibsaday halka shay kale laguma isticmaali karo. aad baa loo adkeeyay. shayga ay commitmentka ugu jirto ayaa lagu bixinaya. sidoo kale nidaamka casriyeynta shaqada wasaaradda horumarinta maaliyaddu waxa uu sahlay in si fudud oo sahlan loo diiwaan geliyo hantida wasaaraddu soo iibsato. waa kan Xuseen Xasan oo arintaasi inoo faahfaahinaya. markuu dukaanku alaabta keeno systemka laga sameeyo delivery order baa jira oo la saxeexay alaabtii soo gaadheen kale. delivery order marka systemka laga sii daayay approve la siiyo ee alaabtii la gudoomo kadib systemku wuxuu sameynayaa wuxuu geenayaa qaybtii diiwaanka hantida wasaaradda. alaabtu waa la diiwaan gelinaya. hantida wasaaradda diiwaankeeda gelaysa sarkaalka qaabilsan hantida oo yoo sibaada maamulka ayaa approve siinaya. marka approve siiyo deedna wuxuu siinayaa number buu siinayaa ID buu siinayaa alaabtii. deedna label bay u daabacayaan way ku dhijinayaan wala label garanaya tag waa lagu dhijinayaa. kadib wax uu soo gudbiyay marka la ka gudbay la gudoonsiyo qoladii waaxdii lahaydna qaybtii payment ku imanaya. systemyada ay qaabkan u shaqeynayaan automation baa laga dhigay iyadoo la raacay nidaamka maamulka maaliyadda dib u habeynta lagu sameeyay BFM-ka.
nidaamka casriyeynta shaqada wasaaradda maaliyaddu waxa uu sahlay in la helo nidaam xisaabeed guud oo dhammaystiran. nidaamka xisaab xidhka saxda ah ayaa alaabo ka kooban wixii dakhli ina soo gala iyo wixii kharash ah ee baxa iyo sidoo kale wixii alaab, agab iyo hanti maguurto ah ee soo kordha muddada xisaab xidhkaasi la samaynayo. intii ka horreysay nidaamka casriyeynta shaqada wasaaradda horumarinta maaliyadda ayaa nidaamka xisaab xidhku ahaan jiray in dakhli iyo kharash kaliya la xisaabiyo iyadoon marna xisaabta lagu darsan jirin hantida soo kordha. haddaba nidaamka casriyeynta shaqada wasaaradda horumarinta maaliyadda ayaa inoo sahlaya in xisaab xidhka dowladda ay ka muuqato dhammaan wixii hanti, agab iyo alaab ah ee ku soo kordha hantida dowladda iyo wixii hoos u dhac ku yimaada qiimaha hantidaasi muddadaas xisaab xidhka. waxaa iyana si weyn wax looga qabtay qaabka iyo nidaamka mushahar bixinta shaqaalaha dowladda. intii aan la suurtagelin nidaamka casriyeynta shaqada wasaaradda horumarinta maaliyadda ayaa shaqaalaha dowladda ay marar badan ka habsaami jirtay lacagta mushaharka iyo gunnada sababo kala duwan oo jiro awgood. si haddaba taas meesha looga saaro ayay wasaaradda maaliyaddu ku dadaashay nidaam daahfuran oo shaqaalaha dowladdu ay si toosa uga helaan mushaharkooda iyo gunnadooda bil kasta iyadoo la xiftiyey oo aan ka daahin. waa kan xuseen xasan oo arrintaasi inoo faahfaahinaya. awal waxaa dhici jirtay saynu ka warhaynay qofka shaqaalaha mushaharkiisa inaanu toos u qaadan jirin isagu oo qastajiba u qaadi jiray ama qof kale ha u soo qaado. waxaa dhacaysa qofkan lacagtiisii mushaharkeeda ama xuquuqdiisa wixii kale u qornaa inaanay mararka qaar ka habsaanto ama aanay hore u gaadhin. qof kasta oo shaqaali payment kasta oo loo qoraa isagu toos ugu dhacaa. qof qaadi kara ama qastaji u qaadi kara ama cid u qaadi kartaa ma jirto. nidaamka u baxda waxa weeye qofka shaqaalihii payrollkiisu markuu baxo isagoo system ku diyaarsan payroll preparation module baa jira ku jira systemka loo diyaariyey. markuu systemka maro account numberka ugu xiriirsan ugu jira systemka wuxuu tagayaa banka accountku ku shubaya ku deposit garanaya. qofka shaqaalihi mobilkiisu text message ugu dhacaya in lacagtii mushaharka ugu soo dhacday ama gunnada wixii ugu soo dhacay. nidaamkan casriyeynta shaqada wasaaradda maaliyadda ayaa keenay inay fududaadaan shaqooyin badan oo markii hore habsaami jiray hadda se qaata wakhti yar si dhaqsi ahna u dhammaada taasoo keenta in ciddii adeegaasi loo qabanayay ay ku faraxdo.